وهجاج إمي مرka halkan waxay noo yaala waa xasoodii baawarka oo iyada halkan noogu jirta xasoodana marka saan u sheegnay waxay ku jirtaa waa tii baawarka ee moolka daarisay fingerprint-kana waa tii ka shaqaysiinaysay marka waxaan sameynaynaa iyada maxaa haya haddaan hadda idiin soo dhaweeyo xasoodu markay sidan tahay waxaa haysa bir baa haysa birtana xajinaysa birtan marka halkan god bay ka galaysaa barta caagaas haya godka kalena waxay la galaysaa afkaas la galaysaa haddaan saa halka hoose aan ka soo qabto aan saa u soo saaro oo ay soo dhacday waa tan birtana haysa okay haddaad rabtaan in aragtaan halka idin dhigo iyadoo clear ah waa birta yar okay madaxa ayaa wuxuu gelayaa godkan madaxan kalena wuxuu gelayaa god halka ku diyaarsan isna marka tani meesha uga sii horeynaysa iyadu tan powerku halkan uga sii horeynaysa iyadoo sidan oo tii moolka shidaysay godka baad gelinaysaa marka labadan maxaan ku kala sheegnay waxa soodii fingerprint-ga ama power switch-ka iyo kalena wuxuu yahay waa birtii haynaysay marka labadaas iyagu waxay isku yihiin hal xubin bay isku yihiin moolka qaybtan hoose waa qaybtii charger-ka ama power connector-kii ku jiray intan marka meesha qaybtii charger-ka moolka ama dabka halkan sare ee half-kana intanina waa intii maskaxda moolka ku jirtay intan cad iyadoo arkaysa shaygan weyn isugu batterigii marka waxaynu furaynaa maskaxda iyo qaybta dabka batterigina marka waa eegayna marka meesha uu ku xiran yahay marka waxaan sameynayaa halkan sare ayaa waxaan ka soo bilaabayaa boorasha in aan ka furo dismiska aan isticmaalayna mar hore ayaa waxaan ka wada hadalnay cabirkiisu inuu yahay 1.5 ayar unbaa soo qabanaysaa sidana marka moolka maskaxdiisii ku soo baxaysaa marka kan isagu waa kofar waa qolofka sare ee maskaxda ilaalinaya ama dahaaraya qarinaya way asturaya waxaanu furaynaa marka qaybta hoose ee connector-ka ama dabka qaybta charger-ka aan furaynaa iminka qaybtii dabkana waxaan sameeyay ama charger-ka waxaan ka dhameeyay boloshii iyadana qafiskan adoon jabinayn oo si tartiib ah u soo furjinaya meel yar baad cidi ka gelinaysaa waa ka saaraysaa kofarkii labaadna waa kan marka kii hore isagu wuxuu ahaa aan halkaan iska dhigo kii hore isagu wuxuu ahaa qaybta sare ee maskaxda ayuu daboolayay laakiin kan kale waxa weeyaan qaybta charger-ka waa hagaag arday halkan saad ku arkaysaan waxaynu furnay mobilkeeni qaybtaas sare waxaan niri waa qaybtii maskaxda halkanna waxaynu niri waa qaybtii charger-ka marka shaqadeena waxaynu ka bilaabaynaa qaybaha uu ka kooban yahay iminka halkan waxaad ku arkaysaan xasow dheer iyadana halkaana waxaa kusoo jirta fiilo kale oo xasow ah bartaa ka soo baxaysa oo charger-ka mobilka ku xidhanta xasowdanna waxay iyaduna ku xidhantaa hoos bay ka soo baxdaa maskaxda mobilka ayay bartaa ku xidhantaa xasowdan labada ah tan koowaad hadda cidi yar baad saa leedahay adoon wax bir ah ka ilaalinaya waan kala furayaa godka hoose ayay qabsanaysaa ilkaheeda xasowdan godkan ayay qabsanaysaa marka muxuu yahay waxa weeyaan xasowdan haddii moolka aysan shaqayn ama aysan xidhnayn moolkaasi dab ma qaadanayo shaashadayna ka timaadaa aan ka furo xasowda labaad okay marka hadda labada xasow aad arkaysaan ay hoos ka soo baxaya waa laba xasow oo labaduba ka yimaada display-ga ama shaashada mobilka haddii aan saa u furo okay hadda arkaysaan sidan aan leeyahay ka saaraya halkaa waa tan hadda mobilkeeni waan ka furna qaybtan wuxuuna ka yimi labada fiilo ay ka kala yimaadeen waa shaashadii ama mobilkii mobilku marka shaashadu cusub tahay ama dhalada cusub tahay waxay wadataa maxay labada xasow ay leedahay labada xasow maxay kala yihiin labada xasow waxay kala yihiin tan dheer waa xasowda qaadaysa codka muuqaalka video dhamaantii inta qaadaysa waa xasowda dheer
oo iyadu waxay ku xidhantaa qaybta connectorka maskaxda. qaybtan ayay ku xidhantaa. okay, halkaasay gelaysaa marka. tan kale iyadu waa qaybta dabka, iyadu waxay ku xidhantaa connectorka dabka ama chargerka ay iyaduna xasooda ka qabsataa. marka haddii tani aysan kuu fadhiin ay kaa dhaqaaqdo, mobilku display-ga shaashada ma bixinayo oo wax muuqaala kama soo baxayo. sidoo kale cod ma baxayo oo codkii wixii ma shaqeynayo, videogii ma shaqeynayo, touchkii xitaa shaqeyn maayo haddii xasoodan wax qabto ama aysan fadhiyin. sidoo kale haddii boolasha halkan aynu kasoo fujinay, haddaa xasuusataan connectorka markaynu chargerka furfurinay, haddii boolashaas ay dhaqaaqsan yihiin iyada laftirkoodu ma fadhiisato oo cilad way ka timaadaa shaashadu inay shaqeyn weydo hadday boolashu dabacsan yihiin. marka shaashada waxaan kaga baxaynaa laba xasoo bay leedahay. tanna waxay ku xidhantaa qaybtan oo tii mobilka hadday taas dhaqaaqsan tahay dab ma qaadanayo. qaybta chargerka ay ku xidhisantaa waa dabkii bay qaadaysaa marka. kan kalena waa tii muuqaalka iyo codka iyo waxba waday, iyaduna xasoodaas labada ah waxaa leh display-ga ama shaashada ayaa iska leh. waayo haddii aynu sii wadano cashirkeena, qaybtan connectorka chargerka mobilka waxaa ku xidhan fiilo dheer oo halkaa ka imanaysa. fiiladan halkaasay soo taxan tahay, bartanna way gashaa. fiiladaas waa anteenada mobilka. anteenadani waxay xoojisaa anteenada mobilka ay xoojisaa. haddii khadkaaga uu culays iyo aad wax ku aragtid ama internetka dhaatada iyo waxyaabahaas oo khadka oo dhan anteenada xoojinaysay, oo iyada laba meelood bay leedahay afkaas, adoo ka taxadiraya diyar tartiib ku fuji. okay, kaas waa ii fuqay. markaan aan saa usoo jiido, markaan afka fujiyo halkaas aan far ku qabanayaa. okay, sidan aan soo hayo marka. qaybtan dambe iyadoo arkaysaa chargerka la soo kacayso, iyadana tanna waxaan ka fujinayaa. chargerkeenina halkan uu inoo yimi, fiiladeenina halkaas ayay inoo taalaa. marka maxaynu ku sheegnay fiiladani waa shayga xoojinaya anteenada mobilka. anteenada haddii culays iyo wax lagu arkay, waxa weeyaan anteenadana go-an ama waxbay qabtaa insha allahu tacaala. iyadana inay dhexda ka go-an tahay inay bad qabto qaab loo cabiraa jira insha allahu tacaala. okay, anteenada halkan naga dhig. qaybtan aynu soo fujisanay waa qaybtii mobilka chargerkiisii. okay, waxaan halkan inoogu yaala waa inaynu mid aynu u sheegno. okay, shaashada aan iska leexiyo, halkan aan inoo dhigo. waa hagaag saaxiibayaal, connectorkan ama chargeka qaybtan aynu kasoo furnay mobilka qaybtiisa hoose ayaynu gaar u sharaxaynaa isaga. sidan markuu inoo yahay, horta halkan waa qaybta waxaa gelaya xasoodii mobilka shaashadiisa ka timi, taasoo nidhi haddaana halka xasood ku jirta aanay fadhiyin, mobilku dab ma qaadanayo. taasoo marka xasoodii shaashada ka imanaysa mid ka mid ah ayaa halkaa gelaysa. halkan isagana waxaa inoogu yaalla waa godkii earphone-ka la gelinayay ama samecadaha yarka fiilooyinka ah ee dhagaha. isagana waa godka caaga ah buu leeyahay. shaygan hadda aad moodo inuu yaro leexsan yahay ee halkan yaalla waa mikrofoonkii codka oo sameecadda hoose qofka markaad la hadlaysay aday codkaaga qaadaysa. midna waa sameecad weyn oo marka qofku sameecadda muuqaalka uu daawanayo iyo waxyaabahaas. midna waa tan oo waa mikrofoonkaaga qof markuu ku maqli waayo oo kale, qofaad koolka wada hadlaysa hadduu ku maqli waayo, mikrofoonkan ayaa kaa hadlaysan. marka kana waa mikrofoonkii. mikrofoonku marka uu sidan yahay oo halkan aad moodo inuu yaro leexsan yahay, haddii aan rogo aan saa u sii jeediyo, halkan wuxuu ku leeyahay dalool. daloolkaas marka waa daloolka kaa caawinaya marka hadlaysa inuu codkaaga kasoo dhex duso. markuu codka marka halkaa kasoo duso, kana wuu banaaya mikrofoonku codku toos ku dhacaya. okay, mikrofoonka daloolkaas u bannaan, marka codkaaga daloolkaas kasoo baxaya. haddii la gufeeyo daloolka mikrofoonkan hoose codku ma gaadhayo. sidaa darteed daloolkaas isagu xagga ku leeyahay. xitaa kofarkii aynu fujinaynay isagana dalool baa ugu sii diyaarsan si aanu u xanimin. isna wuxuu leeyahay dalool buu leeyahay. kii weynaa ee caaga ahaa laftirkiisa labadoo dhanna waa leeyihiin. isaga laftirkiisa halkan waxaa ugu diyaarsan dalool, oo daloolkaas inaad arkaysaan barajeynaya. halkan haddaan dhigo oo kale tusaalahaan, daloolkan marka waa kan, kaas ayaa wuxuu keenayaa in markuu daloolku halkaa codkaagu ka soo galo inuu mikrofoonka ku dhaco. mikrofoonkuna waa kan oo halkan isaguna dalool ku leh. inaad intaas la fahnay
baan rajeynaya. Marka halkan waxaa ku diyaarsan dalool cod ka soo gelayo, isagina wuxuu leeyahay isaguna dalool buu leeyahay. sidoo kale caagi weynaayo mobilku wuxuu leeyahay dalool. hawadu marka codka halkaas uu ka soo gelaya, codka halkaas uu ka soo gelaya. waa hagaag intaa waa isla fahanay isna inuu yahay shaygaasi uu yahay microphone-kii inuu yahay. halkan waanu sheegnay waa earphone-kii. xasoodaana waa sheegnay waqti shaashadu ku xirmaysay haddaanay fadhiin moolku dama qaato. microphone-kana waan ka hadalnay, bartana waxaa inoo yaala maxay charger-kii noociisu inuu yahay type C, waa godkii mobilku dabka ka qaadanayay. marka intan waa inta aynu nidhi waxa weeyaan qaybta dabka. waxbaa raaca marka aynu meesha ku jira aynu kaga nimi. godku hadda markuu sidan meesha ugu jiray, halkan waxaa ku jira shay kale oo la yidhaahdo sameecadii. waa tii weyneyd ee muuqaalka markaad daawanaysid ama qof markuu soo sameecadda la furto ee bannaanka ah, ama video markaad daawanaysid tabaxda, waa tan. iyada waxaa dabka siiya kan. haddaan soo qaado, halkan waxay ku leedahay 2 ilkood sameecadda bannaanku. labadaa ilkood ee xaggaa ku jira ee ku beegan ayaa maskaxdan waxaa ugu beegan sidan soo wareeji. maskaxdan ayaa waxaa ugu beegan 2 ilkood oo labada ilkood ku beegmaya baa halka ugu dhegsan. labada ilkood hadda ay tuso waa labada halkan ku yaala weeyaan. iliga iyo iligaaba waxay ku beegmayaan iligan iyo iligan. seebay ugu beegmayaan? sidaas markaad meesha u geliso way ku beegmayaan. halkaas ilkuhu ku yaalaan. okay, halkaas ayay ilkuhu ku yaalaan. haddii marka aad sameecadda maqli weydid bannaanka ah markaad muuqaalka daawanaysid sidoo kale inay shaqeynayaan, waxaa macquula laba miduun, ama in labada ilkood afartaas aanay qabsan, ama iyagoo saas oo kale u saaran in meeshu aanay geejisnayn oo caagii meesha ku jiray uu yahay bilaa bool. sidoo kale haddii boolashan aan meesha ku dheganayn, sameecaddu waxay keentaa shanqar aad u daran oo waxbaa ka qororxleeya. marka sameecaddanina haddaan rabo waan soo saari karnaa, aan soo bixiyo. waa tan iyaduna qaabkan ayay u eg tahay. si jeedkeeduna waa kaa. markaan soo fujinaysidna waxay u baahan tahay iyada laftirkeedu taxadar dheeri u baahan tahay. marka iyada dabka maxaa siinaya sameecaddan? connector-ka ayaa waxaa ugu diyaarsan si jeedkiisa maxay 2 ilkood oo siinaya maxay iyada dabka siinaya. okay, isla fahanay baan rajeynaya. labada ilkood iyo waxay yihiin waa isla aragnay. waa kuwan labadaas waxaa isku beegmaya iyo labadaa. waaye kana halka inaga dhig waa sameecaddii bannaanka ee codka keenaysay. connector-kana waynu isla aragnay isaguna qaybo ka kooban yahay. waxaanu iska dhigaynaa isagana halkaas aynu iska dhigaynaa. waaye waxay noo dhiman bayterigii. bayterigiisu wuxuu leeyahay xasooda isaga cidida ah yar si yar tartiiba ayaad uga fujinaysaa. waa kan marka bartana maxaynu ka fujinay bayterigii. halkan waxaa kaga xidhma kii powerka aynu markii hore soo fujinaynay dabka daaradimihii switchka ahaa ee badhanka ahaa. hagaag marka bayterigana waa isla fahanay. kasina waa godkiinu hore uga saarnay fingerka ama switchka. marka moolku markuu vibration ku xidhan yahay ama gariirku ku xidhan yahay shayga ka shaqaysiya oo shayga xaggan ku yaala. marka isaga hadda motherboard-ka aan kor uga soo qaadno xagga qaybta maskaxda. halkan iska dhigno. qaybta aan iska dhigno. gariirku waa kan. isagu marka wuxuu leeyahay dabka ka qaataa labada ilkood ayuu wuxuu ka qaataa dabka. sidii sameecadda oo kale isaga labada ilkoodna maskaxdan ayaa hoos waxay ku leedahay 2 ilkood oo isaga dabka siiya. ayaa waxay ku leedahay halkan hoose. waa labadan halkan ku yaala. labadaas haddii aanay ku beegmayn labadaas ku beegmayn macnaheedu maxay weeyaan? gariirku ma shaqeynayo weeyaan. marka hadda labadan u fiirso say isku dul korayaan. markaan ku beego halkan way labada ku jirta. markaan sidaa iraado automatically waxay ku beegmaysaa sidan idha gariirka ku beegmaysaa. marka labada ilkood maskaxda waxaa ugu yaala maxay sidan idha labadaasaa ugu diyaarsan. marka adiga haddii lagu yidhaahdo maxaa vibrationka ama gariirkan siiya daara ama dabka siiya, waxaa leedahay waxaa ka shaqaysiya waa labadan ilkood ee ugu yaala qaybta maskaxda. inaad arkaysaan warajeynaya labadaas waxaa ku beegmaya labadaas. gariirkuna marka waa shaygan yar ee halkan ku jira. shaygaas weeyaan
okay haddii aan fujiyo waa kan marka gariirku si aad si fiican uga aragtaan intaasuu la eegyahay waa shaygaa yar weeyaan ilkihiisaasina meeshay ku beegmayaan waan isla aragnay maskaxda waxay leedahay maxay labada ilkood marka kaasina waa kii vibrationkii weeyaan waaya sidoo kale maskaxdeenna haddaynu meeshan ku ceshano halkan markay sidaa tahay sidan markay inoo tahay okay maskaxda marka sidan inoo tahay bartan waxaa ku yaala maxay samaacadii hadalka ama samaacadii yarayd ayaa halkaa ku diyaarsan samaacadan yar marka waa tan qofka markaa la hadlaysid uu kaa maqlayo oo dhegta halkan ayay ku beegantahay bartan koolka halow markaa leedahay aad dhegta ku hadlaysid oo samaacadii kaa caawinaysay in aad qofka kula hadlayo codkiisa maqashid iyaduna intan ayay la eg tahay sidii tii hore ee samaacadda muuqaalada iyo marka la daaraya samaacadda weyne bannaanka ayaa iyaduna maxay leedahay laba ilkood labada ilkood marka iyada xaggee ku beegmayaan dabka maxaa siinaya maskaxda laftirkeeda markay sidan tahay maadaama ay halkan ku jirto baasho sidan ay u taala aan idiin tuso sidan markay samaacaddu tahay ay halkaa taalo bartaasay ku aadanta bartaas marka sida marka samaacaddu taalo halkaa marka waxaa ku aadan laba ilkood oo dabka siinaya labada ilkood marka haddaan sidan usoo qaado waa labadan okay labadana siinaya yarka iyadana dabka labadaa iyo maxaa isku beegmaya iyo labadeeda ilkood ayaa isku beegmaya baash markay sidaa u taalo sidanay noqonaysaa ilkahaasaa koraya kadib bartaasaa maxaa ku diyaarsan laba ilkood iyagaa marka daaraya oo ka shaqaysinaya haddii marka samaacaddii qofka markuu kula hadlayo aad maqli weydo taa bannaanka keliya kuu shaqaynayso macnaheedu waa maxay labada ilkood baan istaabanayn iyo labadan afarta il baan istaabanayn haddii boolashka ka dacaysiina boolasha adkee haddii kan ilkahaas laga yaabay in bahashan laftirkeeda ay xabag ama wasakh ama waxuun ay saaran yihiin waa laga nadiifiya marka haddii aad bedelaysid iyada laftirkeeda moolka laga soo saaraysa isla booskeedii baad gelinaysa marka labada samaacadoodna waa tii hadalka iyo tii muuqaalka qaadaysay maskaxdu marka sidoo kale halkan waxay ku leedahay hadda markay rogan tahay godkan waa godkii kaararku gelayeen sidana la noqonaysaa marka halkaas meeshii kaarku geliyay ay ku beegmaysaa sidoo kale waxay leeyihiin halkan waxaa ku yaala kamaradihii bartaana waxaa ku yaala tooshkii ama touchlightkii halkan ku yaala bartan isagoo mikrofoonka ku yaala waa mikrofoonkii marka fideoga la duubay ee codka qabanayay midna waa ka hadalka oo mikrofoonka hadalka waxaynu kusoo dhaafnay qaybta chargerka oo connectorka isagoo kan ayuu ahaa laakiin kan kale oo mikrofoonka marka fideoga la duubayo codka qabanaya muuqaalka okay maskaxda markaa waxaanu sheegnay kamaradaheedii inay leedahay touchlightkii inuu leeyahay mikrofoonkii samaacaddii hadalka gariirkii inta waynu ka hadalnay iyadoo markaa saasay marka noqonaysaa oo hagaag marka halkan qalabka inoo yaala muxuu yahay aynu isla aragno waxaynu furfurnay marka laga reebo qafiska okay koo hagan maxay inoo yaala connectorkii chargerkii dabka inoo yaala chargerkaas muxuu dabka siinayaa samaacaddii oo wuxuu leeyahay maxay laba ilkood oo ku aadismaya samaacadda ayuu leeyahay sidaa ugu fadhiisanaya labadaas muxuu kaloo lahaa xasoodan oo ku beegmisa xasoodii shaashadda oo timoolka haddaanay fadhiyin dabka uusan qaadanayn mikrofoonkii buu leeyahay codka godkii earphoneka uu geliyay iyo chargerkii intaas marka waxay gashaa moolka qaybta hoose maskaxdana hadda ayaanu kasoo sharaxnay marka waxaa inoo yaallaa samaacaddii weyneyd samaacaddii yareyn connectorkii maskaxdii sidoo kale halkan waxaa inoo yaalla gariirkii ama vibrationkii halkan waxaa inoo yaalla badhanka switchka ama daaradimiyihii halkiisana waxaa dhinaca taalla birtii isaga xajinaysay martana waxaa inoogu haray mobilkii waa beterigiisii xasawdan dheer ama fiiladan dheer iyaduna maxay ahayd waa tii anteenada oo anteenada ayay xoojinaysaa sidoo kale halkan waxaa inoo taalla maxay shaashadii mobilka ama displayga oo laba xasaw ah xasawda koowaad waxaan nidhi tan waa xasawdii codka iyo fideoga iyo muuqaalka iyo waxba qaadaysay tanna waa tii dabka u qaadaysay oo taasi haddaanay fadhiyin
macnaheedu waxay tahay moolku ma qaadanayo dabka. Marka qaybahaas ayuu ka kooban yahay moolka Samsung A12 oo macallin Ibraahim Cusmaan Cabdinuur. Channelka hadduu kugu cusub yahay waxaan kaa codsanayaa inaad mar kale subscribe noo saarto. Asalaamu calaykum.